waxaan ku xijinayaa sheeko iyadoo caana oo ka dhacday Hargeysa 1900 iyo inta gobonimada la helay 2 sano ka hor 58 waxaa Hargeysa imaanayay nin la oran jiray Duke of Gloucester oo boqoradu ay hadda joogtaa ay eedo ugu quman tahay ama eedo u ahayd u tahay ninkaas wuxuu soo fiirinayay dhulka soo yani dhulkan British Somaliland in ay gobonimada ku adag yihiin oo doonayaan iyo inay ka tahay meel dhaxaad oo uu ku qancin karo inay iska joogaan ninka airportka Hargeysa maanta ayaa la furay isaga loo dhisay baa la yiri oo suuq ku soo dago dawladda calanka ka yimaado markii dan leeyihiin oo wax dhisayaan oo yani iyaga dantooda ah marka kale waxba sameyn maayaan adigu ninkii markuu imaanayay dawladda meesha joogto Ingiriis bay ahayd oo meesha waxa la yiri ninkii odaga ahaa baa imaanaya oo reer boqor oo in loo dabaaldegaayo hadii la ku horeeyay loo umad baa la kiciye marka ilaa airportka la safar ilaa state house guriga la safar min baa dadka dhexdiisa hadii la ku horeeyay gabiya ayaa wuxuu leeyahay sidii naag dhali weelay oo dhawaanay ba wax siiyay oo dhabta wiil yar ku haysa waanu ku dhagal beelaya Ingiriis dhaladkiiyo waxkee ka dhunkadaa buu leeyahay oo macnaha ninkaasina waa nin la yaqaan buu sheekadaas markii socotay sheekada waxa ka socotay magaalada bartankeeda waxa jiray nin goban oran jiray hadii la ku rooyahay Balaayacas Maxamed Ismaaciil baa oran jiray nin wadani ah ayuu ahaa waa ninkii walaalaha Hargeysa asaasay loo tiriyo inuu soo asaasay nin hadii la ku rooyahay uuna jiraan barigaas xanuunka qabay nin walaalkiisu aadan la yiraahdo wuxuu yiri wadana kale umada waa baxday ninkii aanu wax ka soo dhaweynay markaas inta madaxa gacmaha soo maanta soo dhaweeyay Ingiriis dhulkay ku soo dhaweeyay sabab u hadlaysa wadadkii dawaa baxay dahab baxeen yeelkood dadku damiir male markii ayuu tiriyay heestan aadankii uu la hadlay walaalkiisa wuxuu yiri awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabahay adoonsaday ninkii anigana iibsaday ninkii ifka igu adoon tiray haddaan ogahoonan ka aarsan karayn haddaan aadan uruunka jarayn ninka aragiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ixra isagoo England jooga buu idilo ushu soo fidsha iimayso waata aramili oo fatirtay asaagli iba inta ibadaye ninka aragiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ixra horu u yiqiin arliga keeno inaan kitaabo qaadaba wuu ogyaho ishaafalatu ahlada ku yimee ninka aragiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ixra waxay arrintan ilaahay jeclayn haddaanan adimada ku oolin karayn ama aan adduunyo ku iibin karayn aayaadka quraanka waad aragto udgoonayna yiri indhaha ka qarshee ninka aragiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ixra arligii ka samro adduun ma hayee haddii la ilaashay afkaygii haddaanan khiyaar aqoontay hadlayn haddaanan eri qura shirka oranayn ninka aragiisa uurkan ka nacbay aan ooyay albaabka ixra markaas wuxuu daraabayaa dadka odayaasha waayeelka sii socda oo ninkaas soo dhaweynta u sii socda ayuu daraabayaa oo nin walbaba leh wuxuu leeyahay wuxuu ka dhigay zoo inay tahay meesha ninkaan daawasho u yimid marka wuxuu leeyahay xoolo fiican ka qaatay kulli hadduu idin daawanayo oo yani adibaat xoolaatiina ogaada ninkii dhaqday urursada kan kale eegaya adduunka baxshee ragana wuu ogaa hore u arkay ninkii ooridiisa u geynahayo inkayga iyo shaal ayuu ku arkayna imowday axankaaga weyneed libaaxa nasiga abaarsa kacay abuuriin la joogtaba uriso oo dayjabisa intay ka dhacdo amsaxu ka guraa ideelkeed waa ka isticmaalkii iidahaye idinna u dabaaldago ariyahow ayaanu nina oran Soomaalian ahaye ordo magacana ka iibsaday waxa isla maalintaas markii jiray isna loo oran jiray Umar Xuseen Steeliya oo reer Barbara ahaa oo nin gabiya ahaa oo nin weyn ahaa oo dhaqan yaqaan ahaa oo ragii hadii la ku rooyay anigu aan soo gaareenana u dhigo u yara gabiya weyn ninkii geela sida weyn uu gabiyay sagal xaasi dhowrayo oran jiray weyn ninkaas wuxuu yiri anigu dabaaldegina maayo kana aamusi maayo meesha ninkii meeshii lagu shiraayay ayuu tagay state house lagu soo dhaweeyay waxaan tirinayaa bii anigu geeraha leeyahay dan sheeg oo anaga danta yada ah waxa Ingiriis lagu sameeyay buu ku sheegaya markaas uu ku sameeyay iyo dhibaatada u geystay markaas waxa cusub dhulka Soomaalida markii Itoobiya lagu wareejinayo yani Ingiriisku uu Itoobiya ku wareejiyay waqtiga ugu dambeeyay 1904 dhulka loo oran jiray hawd marka la wareejiyay markaas Soomaalida aad bay uga xumaatay arrintaas markaas uu yiri isagii buu la hadlo wuxuu yiri boqorku Ingiriis in badan baan wada joognay afkiisu baranaynay unkana waa iska raacnay ilninkii ku cadeeyay ama eeba ku fiiqana anaga u tagaynay oo ogoleen xumihiisa askar baan u noqonay weeye macna sharmar waa isku eednay ragayga ku idlaaday ardina leegama siinin
axdartii naga gaadhay jabaan waa la ogaayo oof dhan baana bannaan abaalkan ka sugaynay arligaanu lahayn iyo xooggii aan la ag joognayba amxaaruu ku wareejay oo urkutaaliya ciil iyo utun baan ku qabnaa odayaashii horeeto axdigay la qortayna ilowyo ka tallaabsay ilaa wuxuu yidhi wadin ilaalinayaa wadin gumaysanayaa ma oran dawlada eegga la sheegiyo shuuci maanu aqoonay haddaan maanta u iisho idinkaana baraayo oo eedla igama yeelo ururkaanu shiraynay oo ilkahaanu caddaynay rag aqoon daran ma yihiin in weyn baana qarsoona uurku waana bukaa ugaadhaa dabin muuqda aftitaa ka wareegta amba geelu ka maagayna isdhowyoo mari maayo ay libaax ka qaraabto adduun looma horseedo haatan waa is ogaanay maanta aamini mayno aqoon inooguma laabnay axdina noo xarmi maayo haddaana dawlad abuurin oo nimankaa kala oodane afar loo kala goostay ee inba meel lagu haysto ururin oo isu geynin oo isticmaalka ka qaadin iglanay kuma toydo istaaliin iyo shiinana awal iima sinayn aana kaama dhawaysto arrin aan ku hogdoobiyo eegbana nooma dambayso albaabkaa xamar weyn iftiinkaa ka baxayaa indhahaygu jiraanoo abtirsiina ma guurto oo uunkay noogu xigaan arwaaxaygiiyo kowduna waa ushaa iyo diirka odayna waa ka walaal oo lixdankaan is ogna rag ka oolaya miihine arrinkaa isu sheega oo ogeysii madaxdeennabi intaasaan ku idhi buu yidhi anugu